halkan waa garoonka Engineer Yarisow Stadium waa labadii duurnimo garoonka waa uu buux dhaafay waxa buuxsamay fadhigii daawadayaashu waxay ku daawanayaan istaag qayb ayaan ka ahay iima suurtagal in aan gudaha u gala garoonka booliiska waxay xireen dhammaan albaabadii garoonka laga soo galayay garoonka oo buux dhaafay awgii waxa ka soo qayb galay daawadayaashii ugu badnaa tartanka inta uu socday waxa ciyaarayay Puntland iyo Galmudug garoonka waxa uu diiwaan gashan inuu qaadi karo 20,000 oo daawadayaal ah hase yeeshee tirada intaasi waa ay ka badnayd markaan soo galay isbartiiba waa buuxday garoonka isbartiiba police aad u buuxay meelaan fadhiistay ayaan waayay markii dambe ayaa meel yar helay adaan fadhiina shacabka baa aad u badnaay marka ilaahay naadiis waaye marka waa istaag ciyaarta istaag baan ku fiirsaday Galmudug baa gool dhalisay ka bacdina waa gool ka barbacay naqatay Puntland hadana gool dhalisay gool ayay mareysay aniga ismadheeyay Puntland weeraynaysaa Galmudug kareynaysaa niideeda kuma jirin ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxa lagu kala nastay qaybtii hore hal iyo hal balse qaybtii dambe oo la isku soo laabtay ayaa loogu shubay Puntland waxaana sidaasi kama dambaysa tartanka ugu gudbay Galmudug waxaana ay ahayd galab kale oo geesiyaasha Galmudug guul kale ay gaareen waana markii ugu horeysay oo Galmudug ay gaarto kama dambaysa tartanka markii saddexaad oo la qabtay ciyaarta markii ay dhamaatay ayaan kula kulmay qaar ka mid ah daawadayaasha ciyaarta oo u badnaa Galmudugta guusha qaaday Galmudug ayaa daawanaya waxa ku daayara Galmudug wiligeed yaaleed guusha inay qaadato Galmudug waxa ku daayara wiligeed yaaleed inay guusha qaado koobkan wiligeed iiga la qaadayso qof kale ay qaado ka tilaa waqti malahan magacay shukri xasan magacaygu waa Axmed Abdis كون قلت runtii aad wax masabnay aad ugu faraxsanaay waxaan taageeray kooxda Galmudug oo aan sanadkan iyo markasta garabkeeda aan ahay sanadkan meel fiican ku joogta runtii waxaan jeclahay kooxda inaan qaadno waxa loo yaqaan sanadkan insha Allah kooxda kaas kale markii Galmudug sanadkan lagu ciyaaro insha Allah kulanka maanta ma sha Allah wahay ana magacayga Bashir Salaad waxa taageero wahay xulka Galmudug maantana waan soo baxnay insha Allah finaalan joognaa koobkan waxaan rajaynayaa insha Allah in la qaado oo caasimada Galmudug joogo Dhuusamareeb waa ka dareenkiisa soo banaanka garoonka maraan u soo baxay ayaan sidoo kale kula kulmay taageerayaal gabdho isku soo qurxiyay calanka Galmudug kuwaas oo ciyaar ku qabsaday ilinka hore ee garoonka Engineer Yarisow إخلاص عبد الله ما شاء الله موشنا فرح سناي فرح قلبي يقول عليه فرح سناي قلبي ده رجينا مركز قلبي فرح سناي مكة أيه موسى مرادي كان كاي كرم نزار كاينا كوب كاينا مقعي ياسمين عبد النور حسن جامع وايه كوب كان إن شاء الله وحنا رجينا كلنا قدام ببنادر يقل من يقول إسكو سعادو كوب كان إن شاء الله قلقدود Dhuusamareeb وكشكل أنا واحد تاجر قلبي يقول الكفر سناي قلبي يقبل تقول شيء قلبي يقول وحفر سناي ما تلاقي كارت قلبي يقول وحنا رجينا صرت كافيين هكذا قلبي ما شاء الله وتاجر سناي ما شاء الله نيجي كحسن مانتي وافق حسابك Galmudug wallahi Galmudug gacanta ay ku faayay ay guulaysto ugu faraxsanahay koobka ayaa Galmudug ayaa kama dambaysa tartanka waxa ay la ciyaari doontaa Banaadir iyo Koonfur Galbeed tii soo baxda waana markii ugu horeysay oo Galmudug ay soo gaarto kama dambaysa tartanka ama ay ka soo gudubto wareegga gruubyada 2 sano oo hore tartanka loo qabtay waxa ku guuleystay Jubbaland oo tartanka difaacanaysay iyo Puntland oo kii ka horeeyay ku guuleystay tartanka hase yeeshee sanadkan xaalku waa uu ka duwan yahay guuleystayaashu waxay noqon doonaan koox cusub waxaana tartanka uu u dhaxeeyaa Galmudug oo kama dambaysa tartanka sugaysa Koonfur Galbeed iyo Banaadir Axmed Salaad Shiiqow warbaahinta qaranka Muqdisho